suudaan 2009 magaalada la yidhaahdo Saleem waa xadka u dhaxeeya Masar iyo Suudaan ayaan joogay jamaaca la socday nin caalima ilaa imka ninka caalimka waan xasuustaa magaciisa Sheekh Saabir Ali baa la oran jiray allaama khatiiba oo ilaahay uu siiyay quwwata albalaaga wal kalaam wal fasaaha ayaan gurigiisa ku buuqday miskiidku wuxuu qaadaa taqriiban ilaa 10 kun oo qof markaas jamaacadii miskiidkan lagu tiri ya jamaacada Djibouti dhageysta masaajidkan 2 saac subax uu buuxsami doonaa balaas waa la kala waay hadda imika si diyaar garooba masaajidka alaabtiina meel dhigta balaas si qabsada sidee wala ninka khatiibka halkan waxa looga yimaada 100 kilometer ba khudbadiisa looga yimaada hay noogeeyaan ziyaarane daaima jamaacadada tartiibta waxa kamida ma nazalu fi manzil haday magaalo ama masjid ku dagaan la budda wayna sheekha caalimka ziyaartaan gurigiisii baan ugu tagnay markaas jamaaca ku joogta leeyo soo galay buu naga waan galay khudbad buu qadar ku diyaarsanayay waa khatiib waliba warqada uu ku qortaa maahina waa yani yakhutub بدون الورقه markaas uu nagu yiri min ayna markaas aan ku min Djibouti ويا جيبوتي ها طريقات soo marteen waxaan ka yiri waxaan soo maray Djibouti Sanaa Khartoum ilaa iyo qaryadaada waxaan ku imanay bas maxaad masaafada inta leegaad u soo gasheen buu bali sheega markaas aan yiri waxaan u soo galay li islaahi anfusina waxaan u soo galay sheeg waxaan u soconaa baan ku yiri li islaahi anfusina thumma buri ولتذكير إخواننا يدتك ولا الله يا مسلمين إن صبر رجلنا صو زيارنا ثم والإحياء جهد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك النبي محمد وأمد وقت سجد حلقة هانا أمد علماء كوي عيسى حلقة عامدنا أدوية وجزتينا إن العامد وشجنا وكنا رانو ذلك الدين إنك أنا عامي ولا نجرب أي علماء الله شقية أو قرب علماء الصية مركز سوري كلام عجيب وحكى له ماذا وما وحكى انت بنو سعنا وعود اياي نقدم بيا وحي نسيه مركاسا نرني والبوا بماله ونفسه عجيب عجيب وكاي شراب كيبو نو دغدغي كل كان عبني بو نغيري بس واني من مسجدكاس ka socda anagu waxaan leenahay ninkan su'aalaha sidoo noo weydiiyay daqiiqa tolo khudbadii dhanayd ba bilow ka soo diyaari oo tabliiq عجيب منبركي مر علي مركو فولي هذا الكيس وحو كبلابي جماعه ايغو تيميدي بودي غوريغا waxay igu yiraahdeen waxaan ku yiri maxaa dalka u timaadeen waxay igu yiraahdeen waxaan u soconaa islaaxa naftayada waa taan annaku maanta aan ilowsanahay buu hadaan culumanahay inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim آيادا انتو قبتيبو ساعد يا بدء بكدغ خطبه جمعه اصلاح النفس نفت اول اصلاح يا وفرض عين على كل مسلم طبعا كن اوقف مسجد ومصلينا صلاتودا بل كبخوا كاس طبعا كن اوقف مصلينتي صلاتي marka laga baxay jamaacadi waa kuwan salaan ummadii oo dhan waxaan ka wadaa war hadaad bax laga yiraahdo ilaahay dartii u bax waxaad u baxaysaa إصلاح النفطالة واحد صابر نيسا فدق مسكيتك أيان دويت جماعة أفرتن عشور نوصل نقطة جيبوتي أنا مركز كجوجا أيان كيدي ورا أفرتك هذا محد كسوف فايدان كيدي مد بايدي شيخ أنا صلاة دي بحضن بلا بيبوري ما أنت جماعة وحافظ ده يقصوا قادم بان صلاة دي به أيان بلا بي أدنى محد كفايدي بان كوني روكينا وحوري أنا صلاة ده وأنتم كنجري صبح يقول أتك صلاة الصبح بيقول أتكيد بوري salaadii subaxna hadda waan ii joogsato ima dhaafi doonta buu ilaahay idanki hadeeto leh adna maxaad ka faa'iidaan dacwado xurniyo aan quraanka igu adkaa buu horta xifdiga quraanka waan bilaabay juz amaya tabaarik ba soo dhameeyay buu waxaana iga ballana buu maanta markaan sidaa u noqdo quraanka inaan xafidoon cilmiga barto halka markay marayso mid ba si ooyay markaas war bal aamus aduha ooyina maxaad soo faa'iido wala aamusin kari waay markaa waan yaabna annakii baa loo ooynaba maxaa helay ninka ma xanuunsan yahay amiirkii baan ugu yiri ma xanuunsanay u kaadiya markaasaan maxaa loo ooydo
maxaad ka soo faa'iido wuxuu yidhi anigu waxaan ahaa dhallinyarada mukhadaraadka isticmaala mukhadaraadka waad garanaysaan baan u malayn waxaan maanduuriyaha hooyadayda ii dhashay baan dharbaaxa habeenkii la dhici jiray buu yidhi wixii baan hadda xasuusanayaa buu yidhi qof walba halkuu ka bukay ma ka soo bogsan mise kama soo bogsan hada huwa tagyiir albii'a muddadan bax lagu leeyahay wax kale maaha bii'adda hayr weeyaan bii'addan aad ku dhex jirto yar badil de insha allah haddii laynaga dalbana waan baxaynaa insha allah dhahada insha allah dhahada mise waxaad leedihiin maskiid beri annagoo joogno oday baa yidhi niyo wacdigiinaa yar marka hore aad wacdinaysaan aad baan u yar dhegaysanaa laakiin marka dambaan ka naxnaa buu yidhi waa markee baan idhoo marka qalinkiiyo buugga aad soo qaadataan ead leedihiin yaa ilaahay dartii u baxaya markaasaan ka naxnaa buu yidhi waxaan idhi haddaba i dhegayso baan ku yidhi adeer ninku markuu dhakhtarka tago isagoo xumade ahaysoo jiran ayaa waxaa loo sameeyaa irbadda ninka dhakhtarku meesha uu ku mudaayo maxaa lagu sii sameeyaa suuf yaa alkool yar lagu tuujiyaa waa qabow waana macaan irbaddiina way daba taallaa soo maha hadduu yidhahda ka warran suufkaa yar aniga iigu ekaysii ma bogsanayaa maxaa la odhanayaa waar daawadu waxay ku jirtaa tee allah ina fahamsiiyo khayr baa inaga muuqda allah inii ziyaadiyo allah ini barakeeyo in sha allahu tacaala dadaalka diinta iyo cilmiga iyo dacwadda inaan kulmino soo diyaar uma nihin in sha allah jaamacadada inii yimaada inaad la fadhiisataan oo dhegaysataan oo wakhtigiinna aad wax ka siisaanna diyaar ma u nahay dembigeenna allaha dhaaf dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf diinta allah inoo macaaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo maytaadkeenna allaha u naxariisto allahuma aqsim lana min khashyatika ma taxuulu bihi baynana wa bayna macaasiik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين